beesha kaboole oo xuquuqdooda ka maqan xildhibaankooda ka maqan oo duufsada walaalihiisa duufsaday reer shiidle duufsadeen reer shiidle ilaahay ka cabsada reer shiidle ilaahay ka cabsada isku sheexa horta isku sheexa waxaan raadkeeda ku joognaa xuquuqdii afar kaboolo oo naga maqan oo ku dhuntay laga soo bilaabo dawladda carto dawladdii imbagaadi maanta dawladda hadda joogto oo maxamed farmaajo oo madax u yahay xuquuqaa naga maqan laba kursigaa naga maqan faradaalku waa nooga maqan tahay hirshabeel waa nooga maqan tahay waxaan soo jeedinayaa hadduu alla idmo madaxweynayaasha ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha gobolada xuquuqdii beesha kaboolo shuruud la'aan in miiska loo soo saaro waxaan leeyahay beelaha naga haysta annaga xaqeena iyo xuquuqdeena inay isku xishoodaan sidii hore loogu sheegay manihi dad is-ijaa'ifaysto manihi dad oo macnaha oo meel isku soo marmaro waxaa idin fidinay gogol nabadeed guri barwaaqo ah si sharaf iyo wanaag isaga soo xilwareejiya xaqa ay idinku leedahay kaboole kursiga intii ahay kartiin waa haysaan ninka weyn walaalkiisa dhaqankiisa ayaa ugu dhadhamaa ninka yarna walaalkiisa dhiiggiisa ayaa ugu dhadhamaa marka ma rabno in walaalahayna dhiiggayna ugu dhadhama ma rabno ha isdhexgelino walaalahayna shiidlo waxaa naga dhexeeyo wanaag waxaa naga dhexeeyo dhaqan waxaa naga dhexeeyo ixtiraam haddii nahay aqoon-yahanadii beesha kaboollo waxaan diyaar u nahay in si markaa xoog ah iyo si xeelad ah labadaba sidaan ku heli karno inaan kursigeena ku helno miiskaas la soo saaro مسجد wuxuu ku socdaa guddiga khilaafaadka ee doorashooyinka heer qaran waxaan leeyahay guddiga waxaa loo sameeyay cadaalad in ummadda Soomaaliyeed ay hesho cadaalad haddii la waayo meel dhisnaa karta ma jirto cadaalad la'aan sidaa darteed waxaan kor iyo hoos ugu la hadlayaa guddiga doorashada federaalka khilaafaadka u qaabilsan beeshan maanta waxay meesha isugu timid حقوق كمقن للون صدي يعني سقل ضمن لوقاتي بيش كوالو دجان أهان بحد وين يكفر ذاك صوب بالله دين لو إلا بلعت وحيك سيب حيسا شبالها هوسه وحيد يسبلو كوالو إلا فرحانة يعني نقول تحديدا إن عذر أيو عفما درك رقعنا نقول نم بكرامتي سي شرفتي سي وحي كصوبحي الله إلهيو حقيقة أنت على جساره تاس مدمدا جود أجري كيني حق كم كان إيه سدح جبار كي سير هذين كرتا لكن هدي أنا جي قاب كسكي جوس إنه هبل كوم جدا واحد عن هذا اللي راد وحبنا يلا قومنا وجدوا عواشوا حقوق مغن أنا جوا وصديق خليف مختار أنا واسكا أفرت بله كبوله وحان قرال كان إذن سو قدبنا يا مسؤولين تا ورقدان سيدا توسكا أوغو سعوتو إن أي حقوق كمقانتا هاي أفرت بالإيكابولة كونا مقانتا هاي قومية دا بيلها جرير ويني دي حدودا غارهان كراستا جرير ويني تالا قبلكا شبيلها دحي تاسوكا كوبان لما كرسي أو ترسي قودا يهي هوب ever shan iyo hoob ever sideed oo ay kala leeyihiin beesha afar kaboole iyo beesha shiidlo tusaale haddii aan idinka siiyo xubnaha beelaha jareer weyne ee toddobada ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa loo kala qaybsaday sida tan kow hiiraan laba xubnood waxaa kala qaatay beesha makane iyo beesha reer shabeelle labo shabeellaha dhexe laba xubnood waxaa isla leh
beesha kaboole iyo beesha shiidle 3 shabeelaha hoose hal xibin waxaa haysato hintire 4 jubbada dhexe iyo jubbada sare mushunguli iyo mashambare kuraasta 4 beel ee kaboole waxa ay ku maqan tahay beelaha aan walaalaha nahay ee shiidle kadib markii la dilay boqorkii beelaha 4 kaboole boqor cabdiqaadir maxamed yaambo taasoo fursad dhaqan u noqotay beelaha shiidle haddaba 4 beel ee kaboole waxa ay codsanayaan xaquuqda kaga maqan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku leeyihiin in ay ka helaan xaquuqda ay ku leeyihiin oona laga siiyo waxayna ka codsanayaan in loo tixgeliyo waxayna ka rajaynayaan in wax looga qabto baaqa ay soo jeediyeen iyo cabashada oo sida daran uga imaatay beelaha 4 kaboole haddaba warqadani waxaa si toos ah u saxiixay ugaas Sadiiq Khaliif Mukhtaar Macaad oo ah ugaaska 4 beel ee kaboole iyo Maxamed Abuukar Axmed Shiiqo siyaasiga ka tirsan siyaasiyiinta beelaha 4 kaboole si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta